بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر داوديال كسر دوادا ورك تلفزيون قرنك الصومالي لأن وإذا كيمن يستوديو هذه التلفزيون كلها عاصمة هرقيسة وركنا واحد ناس عسين دوناني حسن محمد موسى كهر ورك كسر دوادا فرين عافيمات وفريم عافيمات أو كسب سن كهر تجا عذرك كورونا فيروس si joogto ah ugu farxalo biyo iyo saabuun markaad qufacayso ama hindhisayso ku dabool afka iyo sanka soofta ama masar ama cududaada adoo suxulka soo laabaya kadibna farxalo isku salaama assalaamu calaykum hana iskacan qaadina haddaad muddo 14 cisho gudahood ah ka timid safar dibadda ah oo aad yeelato xumad iyo qufac garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 kala durka laba tallaabo marka aad wada joogtaan gaar ahaan marka aad wada hadlaysaan haddaad isku aragto xumad iyo qufac tagin goobaha dadku ku badan yahay sida sariibadaha iskuulada iyo goobaha la midka ah si degdeg ahna ula xidhiidh lambarka heeganka caafimaadka ee ah 988 haddaad doonaysid talo la xidhiidha cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988 haddaad ka timid meel ama dal uu ka jiro cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka ee 988 14 cisho ee ugu horeeyana ka durug dadka meel gaar ahna isku koob oo cidna ha la kulmin muddadaasi ogow cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag fadlan ku dhaqan fariimaha caafimaadka ee ay idiin soo gudbinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo ay taageerayso hay'adda BSR Finland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa xariga waxa uu ka jaray xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Jirjirka oo ka tirsan degmada Qolujeed ee gobolka Awdal wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Umar Ali Cabdillaahi ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha xarun caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanka Jirjirka ee degmada Qolujeed ee ka tirsan gobolka Awdal xaruntani cusub oo lagu daryeeli doono hooyada iyo dhallaanka ayaa ah mid daweeli doonta inta badan baahiyo caafimaad ee ka jira deegaanada ku xeeran Jirjirka taasoo ay hirgeliyeen qurba joogta iyo qolqol joogta ka soo jeeda deegaankaasi munaasabada xariga jarka xaruntani caafimaad ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka maamulka degmada Qolujeed siyaasiyiin salaadiin ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool deegaanka Jirjirka madashani ayaa waxa ugu horreyn hadalka qaatay mas'uuliyiin kaalin weyn ka qaatay hirgelinta dhismahani waxayna yiraahdeen cabir kaga dhisay waa 45 iyo 30 mitir weeyi mudan wasiir xarun caafimaad qaybihii ay ka koobnayd oo dhameystiran oo ayay ka kooban tahay ay leedahay maanta laga bilaabo waa hanti qaran oo mas'uul ka tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo wasiirka u yahay wasiir Umar runtii maanta farxad weyn bay tahay aniga halkan oo muddo dhaweyd aanu dhagax dhigaynay isla maantana dhamaatay hawsha oo ay ka qayb qaateen dhismaheeda dhamaanba dadka ka soo jeeda deegaankan oo ay ka yihiin qurba joogtooda inta kadib waxa hadalka iska daba qaatay qaar kamid ah madax dhaqameedkii ka soo qayb galay iyagoona u mahadnaqay qurba joogtii iyo qolqol joogtii ka qayb qaadatay dhismaha hirgelinta xaruntani caafimaad waxa la yiraahdaa nin baaqoda cid walibana way ka cabtaa waxaan leeyahay xaruntani waa tii jirjiriyo inta la halmaashay buuraha ka soo jeedaba aan ficilahayn nin waliba intii ka qayb qaadatay goorta hormaana inta kalena wixii ay dhigan lahayd iyo waxay ku caawin lahayd haga soo qayb galaan dhaqaatiirta maanta gacanta ku qabanaysa iyo dhaqaatiirta inta kale oo macnaha joogtaba waxaan ku dardaarayaa in aanay saa dhakhtarka uga tagin maanta furista uga dhamaanay in ay warka hayaan xoogowga iyo macnaha tacliintoodana ay maalmo u sameeyaan dadka masaakiinta sadaqaha ugu baxaan waxaan leeyahay ragii dhakhtarka quruxda badan leh sida uu eegay kii caasimadaha dhisay dhamaantoodba waanu mahadnaqaynaa cidii loo duceeyay ducada Allah u aqbalo cida joogta ee ka faa'iideysan doonta Allah ku anfaco waxa kaloon mahad u soo jeedinayaa intii la magacaabay ee ku soo dadaashay ee ka soo shaqaysay hadduu dibadda joogo iyo hadduu gudaha joogaba waxaan leenahay jasaakumullah khayr Allah idinka jasaaysiiyo dadka halkan deegaanka ku ah ama carracad haatee ama jirjir haatee ama meel kaleba haateena
waxaan ku dardaarayaa in haynta iyo hawsha iyada ah ee milgaha leh ee dadkiinni inii qabteena inii keenaan kuwii ka faa'iidaysta ilaashada ee qof walba iska xil saaro inaad noqotaan baan ilaahay inaga rajaynaya waxaan u soo joogay anigoo ku hadlaya magaca hooyooyinka anigoo ku hadlaya magaca caafimaadka anigoo ku hadlaya magaca umulisooyinka gobolka Awdal halkan iyo meelo ka fogba annagoo hooyooyinka ka soo qaadna iyagoo sakaraada iyagoo dhiig baxaya iyagoo madheertu ku dheersan tahay alxamdulillaah maanta haddii jirjir wax loogu qaban karayo waa nimcatul islaam wal iimaan waxaan jecelahay inaan mahadnaqoon u jeediyo kolleyto dadkii hawshan ku hawlanaa ee ugu badnaa oo qurbajoogga ugu badnaa deegaankan u dhashay waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo kale tiim halkan ka shaqaynayay oo joogay oo hawl jiif caaqilku guddoomiye u ahaa annaguna haddaanu hay'adii seefjil darannay sidaan awalba caawin jirnay waxaan ku darayaa qorshaheegana ku darsanaynaa waana ribood gareynayaa kamana gacan la'aanayno iminkaba wixii aanu heli karaynay degdeg ah ka dhinnaa wixii qaybtii nutritionka ka dhinnayd waanu soo rarnay supplyga waanu keennay annagu WHO ahaan wax allaala wixii aan awoodi karno ee aan nagaga toosan qaybaan ku leenahay xanaanooyinka wixii aan ku leenahay qaybteeda annagu number 1 ka qaadanayna inta kadib waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha degmada Quljeed Maxamed Hodoon Cismaan agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Boorama aadan Ibrahim Liibaan isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr Mustafa Muumin Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro degmada Quljeed 4 iyo 10 tuulo hoos timaada 4 iyo 10 tuulo laba meelood baa MCH leh waa cali caddo iyo jirjirtuulada maanta la farayo 12 kale sida baahidu halka ay u taalayada iyo u taalasi lamida inaan u mahadnaqno dadkii gacanta ka geystay halkan ha ahaadaan qurbajoog iyo qolqoljoog labadaba iyo gudidii gacanta ku haysay ee inta ugu badan hawsha waday waxa aan la iloobi karin yarka ganacsadaha Nimcaan oo aad arki doontaan alaabta meesha taala in isagana niraahno isaga qoyskiisaba jazaakumullahu khayran farxad bay u tahay bulshada reer Jirjir maanta oo uu joogo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka u sareeya wasaaradii inuu xarigayna iga jaro kulli annaguna waxaan ballan qaadaynaa intii gobol ahaaneed inaan wixii naga khuseeya haday shaqaale tahay haday dawo tahay iyo hadii wixii kale lagu wadaya ay tahay inaan annaguna diyaar u nahay meel kale oo cununaysa jirto caafimaadka hayn dhibaatada halkan ka taagan oo cusub waxa ahayd biyaha waxaan idinku bushaaraynayaa inaan ka wada hadalay in ceel halkaas la idin soo jiido biyo halka la idinku keeno waxaan si ballan qaadaya diiwaangelintaas kaarka u qaataan hadaa lambar badan la timaadaan waa ballan inaanu anana waxa la yaalay wixii ay degma lahayd oo dhan ilaano ha loo qabto reer dhagax joog gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi waxaana uu sheegay waxa laga yaabaa waxay ugu qaadatay inaad sanad aad ku dhistaan xaruntan caafimaadka laakiin dee 200 sano soo socota 500 soo socota sano soo socota wasaaradda caafimaadka ugu taala inay joogtayso oo ay wado oo adeegaasi ay bixiso si rasmi ah waxaan u sheegayaa iyadoo garab taagan isuduwiya caafimaadku inaan si rasmi ah ula wareegnay xaruntan oo aan mas'uul ka nahay shaqaalaheeda iyo dawadeeda iyo qalabkeeda iyo ka warhaynteeda aan mas'uul ka nahay waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa kalluumaysatada iyo dadka u dhow meelaha xeebaha waxa uu digay in ay ka digtoonaadaan roobab dabayl wata oo la sheegay in ay ku soo fool leeyihiin aagaasi gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Berbera ayaa waxa uu ka digay roobab duufaan wato oo laga baqaayo inay ku dhuftaan qaar kamid ah xeebaha Soomaaliland waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in feejigni dheeraad ah la sameeyo inta ay socdaan roobabkani waxa uu gudoomiyuhu sidoo kale u digniin u diray kalluumaystada kala duwan ee ka howlgashay xeebaha dalka iyo sidoo kale dadka iyagu degan dhulka biyo mareenada ee xeebaha waxaan u soo jeediyay in ay ka diyaar garoobaan roobabkan la filayo in maalmaha soo socda ay ka da'aan xeebaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xeebaha gobolka Saaxil kuwaas oo tilmaamay in ay hore uga soo da'een xeebaha bari ee Soomaaliland la dariska ah iyo kaydka raashinku waxa ku soo wajahan roobab dabaylo wata oo runtii ilaahay hay naga qabtay u baahan in laga taxadiro marka waxaan digniin u dirayaa dhammaan dadkii badda geli jiray ama kalluumaysato ha noqoto
ama doonyaha kaleba ha noqotaane waa inaanay badda gelin oo ka taxadiraan. waxaa kale oo dadka xeebaha degan iyagana aan leeyahay ka taxadira oo ka fogaada ka taxadira intaad kartaan roobabka dabaylaha leh ee duufaanada ah ee nagu soo wajahan. dhinaca magaalada gudaheeda ee Berbera waa magaalo weyn, waxaynu samayn doonaa haddii la hayraa inaynu ku dhaqaaqno dooxyadii kusoo wajahanaa magaalada inaynu iska awdno si dhaqso leh aynu cagafyadii iyo wixii aynu si degdega imika aynu u qaadno. ilaa imikana waxayna soo gaadhay ilaa saaka wararkii aynu helnay ee gobolka ilaa dacal wax dhibi kama dhicin, waanu nabad qabaa. waxaynu wadnaa waa taxadirun. marka warkaa shalay toole la shaaciyey ee ahaa ee digniinta ahaa un baan kana gobol ahaan doonayaa inaan dadweynaha degan gobolka u sheego oo aan idhaahdo ka digtoonaada. marka dhinaca badda waa sidaas, dhinaca beriga laftiisa meelaha dooxyada waaweyn leh ama meelaha dooxyada u maraan iyo biyo mareenada xoogga ah intaba waa laga taxadirayaa, waa laga digtoonaanayaa. gudoomiyuhu waxaa sidoo kale uu ka hadlay diyaargarowga ay sameeyeen maamul ahaan iyo weliba sida ay uga hortagayaan haddii ay yimaadaan roobabkaasi. kolley waataan kuu sheegaya imanka een dadka leeyahay waxaynu samayn doonaa inaynu innaga lafteenu Berbera dooxyada ku soo wajahan sidii aynu u awdi lahayn. markaa diyaargarowgii waanu samaynay inaanu isla maanta hawshaa ku dhaqaaqnaan doonaynaa. roobabkan duufaanta wada ee kasoo kaca dhinaca badda ayaa sanad kasta la filaa bilahan oo kale inuu ka do-o wadamada xeebaha, gaar ahaana xeebaha badda cas ku teedsan, taasi oo sanadadii aynu soo dhaafnay qaarkood uu ka da-ay amaba ay ku dhufteen. waxaana xusid mudan inay Somaliland ay duufaantii ugu weyneyd ay ku dhufatay sanadkii 2018 taasi oo soo gaadhay qaar ka mid ah xeebaha dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera. jaamacadda New Generation ayaa waxa ay qabatay kulan loogu hiilinayo nabigeennii Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo uu dhawaan u aflagaadeeyay madaxweynaha dalkaasi Francisco. jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa ayaa soo qaban qaabisay kulan loogu hiilinayo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo doorka dhalinyarada la gudboon inay ugu hiiliyaan nabigeena suubane Maxamed sallallahu alayhi wasallam. munaasabad ballaaran oo loo qabtay وهيلتانك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta jaamacadda New Generation dhalinyaro iyo ardayda wax ka barata jaamacaddaasi. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda New Generation waxaana ay ka warrameen sida diinteena islaamku ay nafarayso in loo hiiliyo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. kulli waxaan isugu nimadnay labada arrimood ba ugu waaweynaa inaynu xoogaa orientation program ama ardayda macluumaad ku saabsan jaamacadda iyo مسؤولينteeda kala duwan ba aynu barno iyo macallimiinteedu halkan qaar ay nagala fadhiyaan iyo qodobka labaad oo ahaa muxaadarada ballaaran ee sheekhu waynaga aqbalay Dr. Hussein oo inaga aqbalay inuu muxaadaradan ardayda inoo baraarujiyo inoo siiyo bahda New Generation oo markan marti uga ahaado isagoo muxaadarada iyo barnaamijkiisa inoo siin doona. Dr. Hussein ayaa ardayda wax ka barata jaamacadda New Generation halkaasi uga soo jeediyay axaadiis ku soo ururay sida ay diinteena islaamku ay u banaysay in loogu heliyo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxaan runtii aan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda New Generation ay ku saabsanaan doontaa rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam iyo doorka ay dhalinyartu ka qaadan karaan u hiilintiisa. nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaynu ognahay inuu Ilaahay jalla wa ala yidhi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما نكوسو ديرين إلا إن دتك دمانتود خلقك دمانتود إن رحمة تايمو يعني خلقك دمانتود إن رحمة تايمو يعني وحكلا لكم مصادرين وين وذا دريمي كرنا إن رسولك إنه عليه الصلاة والسلام مؤمنين ته ورحمة يهي oo isaga sababtiisa ayay kaga badbaadeen iyo rumayntiisa ayay kaga badbaadeen naar oo kaga baydheen wixii aakhiradooda iyo adduunyadoodaba dhibi lahaa. laakiin waxaad ogaataa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta oo qura raxmadu ma ahayn, xataa gaalada colaadinaysa ee caayaysa ee aflagaadeynaysa ee dhallaacaynaysa ee wakhtigiisii noolayd
ama maantaba nool ciday doonaanba ha noqdee xataa kuwaa nebigu calayhi salaatu wasalaam naxariis ayuu yahay fiican leh ilmo bani aadam qofka uga akhlaaqda fiican lu ilaahay nebi maxamed ka dhigay waxaa kaluu ilaahay ka dhigay qofka ugu muuqa fiican leh ee ugu abuur fiican leh siday saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam sheegeen waxa ilaahay jalla wacalaa uu siiyey akhlaaq aada iyo aada u qiimo badan ayuu nebiga ilaahay jalla wacalaa siiyey fakaana arxama annaas wa kaana afdala annaas wa kaana ashjaca annaas wa kaana akthara annaasi tawaaducan wa kaana arxamahum bilciyaali waalfuqaraa'i walyataama waalmasaakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay sifaat alkamaal dhammaantood buu isugu daray sifaat alkamaal dhammaantood ayuu ilaahay isugu daray sida aynu sheegnay waynu u soo noqon doonaaye ilaahay marka uhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin culimmadu waxay idhaahdeen waa ballan ilaahay uu qaaday inuu cid kasta oo nebi maxamed ku dheeldheeshay ee alla ku filaado oo ilaahay ciqaab iyo cuquubo mariyo walihaadaa culimmadu waxay idhahdeen ilaahay arrintaa wuu oofiyeyoo ma jiro qof nebiga aflagaadeeyey carab iyo cajam cidduu doonaba ha noqdee ilaa ilaahay caza wajalla intaan aakhire la isla gaarin adduunkaa lagu ciqaabay adduunka ayaa lagu ciqaabay wa qatalahu shara qitla ilaahay waxa uu ka dhigay inuu u dhinto si xun inuu u dhinto doctor xuseen ayaa ardayda wax ka baratay jaamacadda new generation halkaasi uga soo jeediyey axaadiis ku soo ururay sida ay diinteena islaamku ay u banaysay in loogu heliyo nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam qaar ka mid ah ciyaartooyadii ka qayb galay tartankii ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabad waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa taasi oo lagu dhiirigelinayay marwo nuuro xuseen dhalax oo ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahayd casho sharaf ku maamustay qaar ka mid ah ciyaaryahanadii ka qayb galay tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay caasimadda Soomaaliland Hargeysa ciyaaryahanadani oo intaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland la bilaabin ku ciyaari jiray garoonka biibsiga ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay casho sharaftaasi lagu maamustay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha tababarayaashii leelinayay qaar ka mid ah xulalkii gobolada Soomaaliland ee tartankaasi ka soo qayb galay iyo sidoo kale ciyaartooydii casho sharaftaasi lagu maamusay ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah tababarayaashii leelinayay xulalkii gobolada Soomaaliland ee tartankii ciyaaraha gobolada ka soo qayb galay waxay marwo nuuro xuseen dhalax uga mahadnaqeen casho sharaftaasi ay ku maamustay ciyaaryahanadaasi iyo weliba sida ay u dhiirigelinayso daayarta jecel ciyaaraha waxaan marka hore aan mahadnaq u jeedinayaa marwo nuuro xuseen dhalax oo aad iyo aad waxa weeye aan iyada ugu hambalyeeyo dhiirigelinta ay sameysay waxa guul weyn oo dhammaanteen in tartankii bilaabmay Soomaaliland dhammaantii gabi ahaan ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyo wax badanna waxa weeye ay nooga qabsoomaan ciyaaruhu waxa loo qabanayaa iyo nuxurkoodu wuxuu yahay inay dadku isku dhex galaan oo la isku barto oo gobolada kale isku soo gaaraan halkaana lagaga nasto waxyaabo badan arintaana waxa u maray waa muddooyinka ciyaaruhu Jamhuuriyadda Soomaaliland socdeen ilaa madaxweynihii wadanka ayaana shaqadu haye iyo wuxuu ka shaqeynayay halkii wax marayaan ayna cidna warba ka hayn isagaana arintan ka garaabay oo yiri waa idinkum baa leedin hadal haya anaga warba cidinagama hayso arintaasina waxay dhalisay guul ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaadhayo dhankooda waxa halkaasi ka hadlay kana mahadnaqay qaar ka mid ah ciyaaryahanadii casho sharaftaasi loo sameeyay waxaana nuuro xuseen dhalax uga mahadnaqeen casho sharaftaasi ay ku maamustay iyo weliba sida ay u garab taagan tahay nuuro dhalax waxaan uga mahadcelinayaa iyadoo xafladan qiimaha leh ay ku maamusisay in ciyaaryahanada kala duwan ee biibsiga iyo saddexda gobol ee kala duwan kulli muhiimadda ciyaaruhu waa isdhexgal in muhiimadda caawa halkan fadhinaa waxa weeye inay tahay kulli toolo ujeedadeenu maadaama markii hore saddex gobol kala matalayeen caawa meel wada fadhino isku mid nahay waxa weeyaan muhiimaddu inaan la kala tagayn waxaan u mahad celinaynaa maama nuura oo leenahay aad baa u mahadsan tahay maama nuuri dhiirigelin kaliya toomay sameyn xaafadda biibsiga laakiin ciyaartooyda wadanka oo dhan bay dhiirigelisay cid waliba way matalaysaa macallimiintii bay dhiirigelisay waxaan leenahay maama nuura ilaahay hakaajisa ay siiyo agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa marwo nuuro xuseen dhalax uga mahadnaqay sida ay u dhiirigelinayso daayarta jecel kubadda cagta guul baynu soo hoynay weyn maanta oo ay wadankeenu ku faani karo oo ciyaartay ahaan lagu faani karo ciyaaraha mar walba oo la ciyaaruhu way yeelan karaan shaqaqooyin iyo
waxaan ku idhaahdaa xifiltanba waana inta ciyaarta gudaheeda lagu jiro taasay noo cadaynaysa maanta inaynu halkan goboladii guuleystay iyo goboladii laga guuleystay ay isugu yimaadaan oo isu hambalyeeyaan oo ay wada hadlaan oo walaaltinimo muujiyaan ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaado sharafyo lagu maamusay qaar ka mid ah ciyaaryahanadii ka qayb galay tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland. wararka dibadda xuutiyiinta Yaman ayaa waxa ay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen goob shidaal oo ku taala dalka Sacuudi Carabiya. jabhadda xuutiyiinta Yaman ayaa sheegay in ay gantaal ku garaacday xarun ay ka howlgasho shirkadda saliidda ee Aramco ee Sacuudiga laga leeyahay. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Sacuudiga oo xaqiijinaya sheegashadaasi. afayeenka militariga ee kooxda kaasoo isniintii uga digay shirkadda ajaanibta iyo dadka degan Sacuudiga Carabiya in ay taxadar muujiyaan maadaama ay howlgalladan sii socon doonaan. wax soo saarka saliidda iyo dhoofinta Aramco waxa ay inta badan ku yaaliin gobolka bariga Sacuudiga in ka badan 1000 kiiloomitir oo la dhiganta 121 mayl wadankan oo dhan. shirkadda weyn ee saliidda Aramco isla markiiba kama aysan jawaabin codsi ku saabsan faallo. afayeenku ka hadlay militariga xuutiyiinta ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday gantaal noociisan oo wuxuu sidoo kale soo dejiyay sawir dayax gacmeed wata calaamadda khariidadaha Google ayaa muujinaya xarun u dhiganta sawirkaasi iyo sharaxaadda oo ku taala duleedka waqooyiga Jidda. weerarku waxa uu ahaa sax ambalaasyada iyo dadamisyadu waxay ku yaaceen bartilmaameedkaasi. xaruntan ayaa koonfur bari ka xigta garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaaladaasi ee Jidda. Kiin Cabdulcasiis la yiraahdo oo ah goob muhiim u ah oo gacanta ku haysa xujayda muslimiinta ah ee soo gala Maka. Yaman ayaa ku jirta xaalad colaadeed tan iyo markii xulafadii uu hogaaminayay Sacuudiga ay soo farageliyeen bishii Maarch 2015 si ay u soo celiyaan dowladda Yaman oo ay xoogaga xuutiyiintu ka saareen awoodda caasimadda Sanca dabayaaqadii 2014. weerarada xuduudaha ee xoogan xuutiyiinta ayaa sii kordhaysa tan iyo dabayaaqadii bishii May markii xabad joojin ka timid cudurka cusub ee coronavirus uu dhacay. isbahaysi uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa ka jawaabay duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday dhulka xuutiyiintu ay haystaan. xuutiyiinta ayaa xukuma in ka badan waqooyiga Yemen iyo inta badan magaalooyinka waaweyn waxaana sheegeen in ay la dagaalamayaan nidaamka musuqmaasuqa. weerarkan la sheegay ayaa yimid kadib markii booqasho ay xogayaha xilka baneeyay ee Mareykanka Michael Pompeo uu ku tagay boqortooyada si uu u arko amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. warkaasi halka kala socotaan waa telefishinka qaranka Somaliland stuudiyiisa dhexe ee caasimadda Hargeysa. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya warkaasi. dhinaca tabinta waa aniga Xasan Maxamed Muuse oo idinkaga tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.